صلاة بالله إنا فري قالوا إن هذا كلي أقولي كنت كتنا وامد هذا مسلم قالته كتنا وشاني العطا وحين الآخرين يوم الآخرين سبب الآخر سكابوا كوي ريال غيابا مركز مملكة الرسالة فتعقول أخذه ولا الكعادين عسكو هيستان درادي أي إلهي وحقوق زيادين تضبي الله بعد الصلاة ضد النقط صوكي بالله ميدا حجكي بالله ميدا مجتمع عالمي مسلمين تقدر من سقوط ماضو إذا اجتماع يميد ماضو عدد ضد كي موجسة النبي صلى الله عليه وسلم وحا ugu fadli badan salliga dheer ibraahimiyada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waa ugu fadli badan waxa ugu yar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa fi anta maalintii ugu yaraan kun jeer ina afraataka saacadood nabiga ku sallallahu alayhi wasallam waxa si way ururayaan oo xasanaada ديوان كاغاس جليان وكقرمية آخرة بحصن دوت إلهي إلهي مركو كهل أهل الجنة في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد متقين الجنة واللوس دويابا إلهي سبحانه وتعالى مركاسو وحو شيء آيات كحكتا أفرت المامود وعجب له وضدك الجنة اللوس دوينيا أي اسكليهين هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لبطي فضوا قواس كم واتي الله إذين يبو هايوي ضدك جنة الله سودوين أيو إلهي سودوين يواكوه لكل أواب متكستون نقش بدن إلهي وطوبت كينا دن بداف إلهي ويديست الله وطوبت كينا حفيظ أي حافظ إلى بدن ودنوبتي معاصيدا اسكا إلاليني واجباتك يحلك صارنا إلاليني والله إلهي قرآنك وحكوشة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون مال أو آخرة وحلمته كل سنة الدنيا ده مرك الدنيا ده هدي الله فيري كل سنة مال آخرة كلية وحاول تقريبا لبس ساعة يبر لبس ساعة مالها سواء نولش الدنيا ده ولا بس ساعة مرك إني همي كذا كسرت لبضع ساعة sideen u noolaadaa sideen nolol fiican u gala war waxa ku sugayso nolol ka dheer oo milyaaraad siniin ah oo milyaaraad abad al-abidin ah horta focuskaaga halkan kaliya saarin u sii jeedi halkaana ka shaqee laakiin ogow nolol dheer inay ku sugayso oo dheer ragga diintoodana laba shay baa laga gartaa haweenka diintoodana laba shay baa laga gartaa raggu diin inay leeyihiin diinta ku dhaqmaan laba laga gartaa waa amaanadooda iyo ballanka sida uu ilaaliyo baa laga gartaa diinta ragga salaada ma waxa laga garto soonka ma waxa laga garto diinta ragga waxa laga gartaa oo lagu cabira maaragtaan qaabka dadka ula dhaqmayaan la amaanata lahu wala diina liman la ahda lahu ba nabigu alayhi salatu wasalaam qofka amaana aan lahayn buu nabigu iimaan ma leh qofka ballanta aan ilaalinayna buu nabigu diin ma lahu rasuulku qofka diin aan amaana aan lahayn iimaan ma leh waayo qofku markuu amaanada ilaalinayo markuu alla ka cabsanayo amaanadu amaanatu diin way noqotaa amaanada adduunyada way noqotaa lacagtan aad ku qayilayso ama aad khamriga ku cabayso ama aad sigaarka ku gadanayso ama aad buuriga ku iibsanayso ama aad riwaayadaha ku daawanayso ku bixinayso ama shawga aad ku bixinayso ma isweydiisay qofka caynka sameynaya waxa laga yaabaa hooyadii ama walaashii ama qof ehelkiisa ah in suuqa uu fadhiyo 10 saacadood maanta oo dhan $5 inaanay soo gelin baa dhici karta $10 inaanay soo gelin baa dhici karta adiguna $10 iyo wax ka badan baad ku bixinaysaa inta inaanay soo gelin baa dhici karta bal isweydii imisa goblan oo joogta imisa agooma ah imisa ayaa waayeelaho baahan waxba haysan imisa bugta imisa dhaawaca oo maxaan waxba aan haysan koobacaana waxay siistaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna diintanu inoola yimid waa diin inagu leh naarta ha ka badbaadaan aniga isoo raac buu nabiguna leeyahay
وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي أنا قلنا كنت قاسان إنك هيا هلكا دحركا أيان إني هياب النبي قول عليه الصلاة والسلام سان نارتا ومدعي من إنك حجنا يا إنك نوادسك كي كلنا ساروا النار تتقوها من إسام رسولك لأن الرياضي مركو الشيء يقول والله منام قال لك تسوى حق أبها النار بو كدن بين دونا نار بو نكون دونا قال لي مكون من يا waxaa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu ilaahay ugu dhow yahay ilaahay markuu ugu dhow yahay waa laba waqti waqti waxa weeye waqtiga uu sujuudsan yahay ee wajiga uu dhulka dhigay ee uu dabada kor u taagay xubintii u sharaf badnayd jirkiisa wajiga dhulka dhigay dabadiibu kor u taagay waa fooraraa ilaahay cid aan ahayn oo saa lagu weyneeyo oo loogu sujuudaa ma jiro xilligaa qofku waa markuu ilaahay ugu dhow yahay ducada badiya iyo baryada ilaahay buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa xaqiiqa ilaahay ducada inuu idinka aqbalay xilliga labaad ee qofku ilaahay ugu dhow yahay waa habeenkii niska dambe thuluthul akhiir inaga hadda waqtigeena saacadahan aynu hadda isticmaalno deegaan ahaan thuluthul akhiirku wuxuu soo galaa kowda habeenimo qiyaasta haddii kowda habeenimo la gaaro habeenkan saddex meelood meeshii dambe way bilaabatay marka haddaad labada kacdo ama saddexda kacdo dantaada iyo baahidaada yaa rabbi adigu maad raalli iga noqotida makhluuqa kale haba ii caroodaane yaa rabbi adigu maad ii macaanaatid oo munaajaadkaagu muu ii macaanaado oo salaadaadu ma ii macaanaato oo qur-aankaagu muu ii macaanaado oo taacadaadu ma ii macaanaato oo dikrigaagu muu ii macaanaado nolosha inta kale haba igu qadhaadhaatee yaa rabbi adu haddaad raalli iga noqoto bay tidhi waxaan garanayaa wax waliba inay ii hagaagayaan waxa adduunka dulyaalana waa turaabna turaab unbuu ku noqdaaye gaadhiga quruxda badan leed arkaysa maxaa laga sameeyey turaab qasriga dhisan waxaa laga sameeyey turaab dharka quruxda badan leh waa turaab gabadha quruxda badan leh waa turaab ilmahaagu waa turaab lacagtaadu waa turaab cuntada macaan waa turaab wa kullu alladii fawqa turaabi turaabu yaa laytanii kuntu turaaba waxa lii waxa adduunka dulyaaloo dhan waa turaab تراب لو علين دونا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بإلى هيري أيها البشر بشر كان هلا يسعدوا أذيك أجندن جرك أجندن لفها أجن يضبك أجن يديك أجن يملح أجن يوسك أجن عيدا سنجس بين بإلى هيري عيدا نقول علين دونا مرد من عيدا نقص صار دونا بإلى هيري إذا صح منك الود بيتري يا ربي وحن قرنا يا بيتري haddaad adigu iga raalli noqoto ood i jeclaato wax igu adkaanaya nolosha adduunyada maba jiraan sirta nolosha waa taas